dadkii dib uga soo laabtay xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya oo soo gaaray magaalada Kismaayo ayaa maanta waxaa loo dhagax dhigay xarun waxbarasho oo lacag la'aan ah taasoo loogu gol leeyahay in ay wax u bartaan dhallaanka ay wataan dadkaasi dib uga soo laabtay xeryaha qaxootiga Dadaab Kenya. wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo mas'uuliyiin ka socotay maamulka gobolka ayaa si wadajir ah waxay u dhagax dhigeen 3 goobood oo ah dugsiyo wax loogu bari doono caruurta iyo dadka waaweyn kuwa oo ah kuwa lacag la'aan ah. dowladda Jubbaland ayaana gacanta ku haysa goobahaasi waxbarasho. maxamed xaaji aadan iyo maxamed ismaan gaab ayaa si wadajir ah waxay u tilmaameen in hadafkoodu uu yahay sidii sare loogu qaadi lahaa aqoonta qoysaska danyarta ah ee ku nool xaafadaha magaalada Kismaayo. waxaa farxad weyn noo ah in aan dhagax dhigno anigoo ka wakiil ah gobernatoraha gobolka Jubbada Hoose. waxaa nasiib wanaag nala jooga wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo mas'uuliyiin badan hay'adda Safe Children oo aan ugu talagalnay caruurta IDP camp-kan in ay maaragtay ka faa'iideystaan iyo dadka maaragtay deegaanka ah. wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Jubbaland mudane Axmed Cabdirasaaq Handel ayaa dhankiisa waxa uu tilmaamay in talaabadan ay qayb ka tahay talaabooyinka horumarinta Jubbaland. soo dhagax dhignay xarumo waxbarasho oo kala duwan oo aan ka kala dhagax dhignay dugsiga Ganaane iyo Kismaayo iyo xaafadda Madiina ee ka tirsan Fiaf Madow. fasaladaas kala duwan ee aan soo dhagax dhignay waxaan rajayn doonaa inay ka faa'iideystaan ardayda agoomaha iyo barakacayaasha dadka loo dhisay ee danyarta ah. dugsiyadaas oo noqon doona dugsiyo lacag la'aan ah. dugsiga Ganaane waxaan ku kordhinay 5 fasal iyo hool aan ugu talagalnay inay shirarka ku qabsadaan maamulka dugsiga, halka aan iskuulka Madiina aan ka dhisnay 4 fasal oo 6 fasal oo temporary ah. أنا رجعين دونا إني نقول دونا الإسكول الرسمي أو لو بدل دونا دكتور عادي نيو كسماية سيدو كلام أنا هذا دو تاجنا هاي ولا قحدي صدحات سجنا واحد رجعين دونا إني كفاء الإستان. وعبد الخضر عبد الله أبو بكر كالسن تي في كسماي.